السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ماشان iga daawanaya videogan magacayga waxa la dhahaa Cabdul Cabdi waxaan deganahay magaaladan Ottawa haddana waxaan u tartamayaa inaan noqdo xildhibaan ee magaaladan deganahay gaar ahaan dhinaca Ottawa West Nepean la dhaho daawadayaal especially dadweynaha Soomaalida oo degan magaaladan Ottawa waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa idin salaamo salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal saad u ogtiin doorashaan ku jira orod baan ku jira tartan baan ku jira maanta meeshaan ku jiro kaligay iguma jiro idinkaan idinkugu jira sababtoo ah waxaan u baahanahay cod magaaladan 30 sano iyo ka badan baan deganahay ilaa haddana ma haysano cod oo annagana matala dhinaca minishibiyada dhinaca gobolada ilaa haddana dhinaca federaalka wax oo aan gacanteena ku hayno maanta ma jiraan maalin walba caruurteena baan ognahay inay geeriyoodaan magaaladan maalin walba waxaan iskugu imaanaa maxaan dhahaa tacsiyooyin masaajid oo maxaan dhahaa tacsiya isku keentay iyo meelo oo xabaalo u tagno iyo janaaza marka saa daraadeed walaalayaal arrintan anigu waxaan u qaatay inay noqotay priority-gii ugu horeeyay meelo badan baa la iga weydiiyaa waxaa la dhahaa Cabdul waa maxay priority-gaagu waxaan dhahaa safety and security why sababta qof kale oo dhahaya safety and security ma jiro because waxa dhici ka dad badan inaysan saameyn arrinta say ii saameynayso aniga iyo community-geena iyo dadkeena marka walaalayaal waxaa jira dad maanta ka cudud daartay xisbigan galay laakiin su'aasha aan idin weydiiyay Soomaaliye yaa idin maqan yaa noo maqan marka laga fakarayo laga walwalayo xisbi dantaani maan ka walwalno caruurteeni maan ka walwalno marka walaalayaal waxaan idin dhihi lahaa dadkii raba inay wax la qabtaan hay la qabtaan dadkii raba inay doortaan hay doortaan dadkii raba inay taageeraan hay taageeraan dadkii raba ciidan inay soo diraan hay soo diraan dadkii raba dhaqaale inay siiyaan hana siiyaan laakiin ogaada hal wax maanta haddaan guulaysto idinkuna waa guulaysateen annagoo dhan baa guulaysanay doorashadan way dhamaanaysaa October 21st laakiin su'aashu waxa waaye Soomaali haddaan nahay October 22nd marka la gaaro maxaa annaga noogu kordhay waxaan isweydiino su'aashaas marka waxaan idin dhihi lahaa walaalayaal aad iyo aad baa umahadsantihiin iskuma cusbin waan isnaqaanaa magaalada waa isla joognaa bulsho fiican baan nahay magaaladan Ottawa oo isjecel oo walaalo ah siyaasad nama kala bedelayso siyaasadna nama kala saarayso diinteenna iyo dhaqankeenna iyo dadnimadeenna baa mar walba ka weyn siyaasad saaya daraadeed walaalayaalow waxaan idin dhihi lahaa jazaakumullahu khayran waa mahadsantihiin idinkoo dhan waa idin salaamayaa caalamka meeshaad joogtiin Soomaaliye meel walba aad joogtiin ha noolaato idinkoo dhanba ilaahay baa idin baryayaa reerihiinna iyo arrimihiinna ilaahay idin sahlo أنا وحنا نقعد سنة يا ملو بتشوكتين إن شاء الله إن يسود عيسين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته